xubnaha halkan ka taagan nin waliba taytalku doona ha sitee iyo maaragtay xubnaha ciidanka booliiska halkan jooga iyo bulshadan kale maaragtay kasoo qayb gashayba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahadoo dhan ilaahay baa iska leh nimcooyin badan oo aynaan tirin karaynayna siiyey waynu u mahadnaqaynaa nimco dhammaanteedna isagaynu u celinayna waxaa kaloo runtii u mahadnaqayaa maareeyaha wakaaladda biyaha master daarood magacaasaan ku dhegayaa xoog weyne oo maaragtay goobtan aanu taagannahay saldhiggan booliiska wakaalad ahaan u diyaariyey maaragtay oo arrin aad iyo aada u weyna saldhigga waa la dhisi karaa laakiin xigmadda meesha ku jirtaa waxay tahay goobtan laga dhisay iyo macnaha loo dhisay muxuu yahay xigmadda runtii muhiimkii waa taa fikradda oo maaragtay noocaasiya ayaan runtii aad iyo aada ugu mahadnaqayaa waxaa kaloo ugu sii mahadnaqayaa intan maanta aan soo maray maaragtay goobtii operationku ka socday xaruntii oo hargeysa ahayd oo aad iyo aad hawl culisi ka socotay oon arkayey maaragtay yididiilo weyn magaalada hargeysa inay biyo heli doonto mustaqbalka dhow insha allah oo se loo diyaarinayey iyo qalabka lagu diyaarinayey iyo cidda diyaarinaysay maaragtay waa awl weyn oo dee taa farsamadaana waday isagu maaragtay waxyaabahan kale meelaha imika biyaha laga soo garaacaya imika la dhamaystiray iyo beebka sida loo adkeeyey oo maaragtay anigu aan hore u soo marin waxaan u arkaya inay hawl weyn operation weyn oo lasoo qabtay ay tahay waxaasoo dhan dee ninkaa maaragtay dhallinyarada ee maareeyaha isagoo dee dawladdana kaashanaya laakiin qofku hadduu hawsha loo dhiiba ka soo baxo waxa weeyaan waa in loo mahadnaqo sababahaasaan horta ugu mahadnaqaya isaga halkan goobtan oo saldhiggan uu ka dhisanya maanta aan la wareegayno saldhiggan booliiska oo ku yaala seeraha maaragtay geed deeble waxa weeyaan waa wadnihii waddankeena ama waa wadnihii hargeysaan odhan kara qofka bil'aadmiga ciidamada marka wax la barayo siduu isu seef garanaya askarigu wadnaha marka hore iyo madaxaa siduu u ilaashanayo la baraa meeshan waa wadnihii seerahaas lama ogola anigu ciidan ahaan amarkaan bixinaya waxa weeye ciidanka booliiska saldhiggan waxaan farayaa inaan ciddii hore ka dhisnaydna dawladdaa maarayn doonta cid kaloo ku soo biiri doontaana aanay jiri karin taliyaha rugta halkan waxaa la farayaa inaan cid iman karta meesha oo dambe oo kusoo biiri karta aanay jirin waa inuu mas-uuliyaddaa weyn qaadaa xilkaa iska saaraa lama ogola wixii horu yaalayna dawladda insha allah maaragtay ayaa raraysa goob ku habboonoo wanaagsana dejin doonta iyadoo adeegyada bulshada kala duwanaana loo diyaarin doono sababta saa loo leeyahy waxa weeye waanigaa idhi waa wadnii saas sababaha noocaas aynu ilaalinaynaa dadka deegaankana waxaanu u sheegaynaa iyadoo aan idhaa bulshadeena somalilandba ay wanaagsantahy oo booliska ay si dhow la shaqayso waxaanu ku wargelinaynaa inay amaamiirtaa u dheganuglaadaan oo qof waliba xilka dhinaciisa iska saaro maaragtay wixii dambena aanay cid u soo dhowaan dadkaa horena insha allah si fiican uga diyaar garoobaan iyagoo maaragtay amaamiirtaa dawladda qaadanaya ugu dambayn waxa runtii aanu samayn doonaa ciidankana waanu soo kordhin doonaa insha allah waxaanu la wareegaynaa maanta saldhiggan iyo gaadhigan dabadeeda taagan oo aanu kala wareegayno maaragtay maareeyaha biyaha oo hawshaa diyaariyey oo iyadoo maaragtay ay dee dheeraad tahay isagoo ujeeddadiisu ay ahayd in biyuhu ilaashamaan oo kolley aniga qorshaadee way ugu jirtay booliska laakiinse maaragtay si hawsha usii fusho uu maaragtay sii fikiray uu sameeyey ayaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waxaanaynu insha allah dhammaanteenna maaragtay hawshaa ciidankuna meel kastuu joogo maaragtay nin waliba halkuu joogo wuxuun baan ku adkaynaya inuu shaqadiisa qabsado